wafdi culus oo ka socda dalka Turkiga ayaa la filayaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo ay ka bilaaban doonto dhaqdhaqaaqyo ku aadan xiriirka labada waddan oo la sii xoojiyay iyo sidoo kale gogol xaaridda iyo soo dhaweynta diyaar garowga madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan oo la filayaa inuu dhawaan soo gaaro magaalada Muqdisho kaas oo u sii gudbi doono dalka Itoobiya ila waraadyo lagu kalsoon yahay oo helay Kaab Somali TV ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan la filayo inuu dhawaan soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kalena haatan ay imaanayaan wafdi hordhac u ah imaashaha madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo la filayo inuu u sii gudbo halkaasi iyo Itoobiya madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay dhawaan heshiis ka dhacay Ankara oo isaga ka ahaa dhexdhexaadiye in dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya uu heshiis dhexdhiga kuwa oo muddo sanad ku dhow muran uu ka dhaxeeyay kadib heshiiskii muranka badan dhaliyay ee dawladda Itoobiya ay la saxiixatay Somaliland horaantii sanadkii tagay ee 2024 dhinaca kale wafdiga ayaa la filayaa inay isla shaqeyn doonaan xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ay u xil saartay hab maamuuska iyo sidoo kale soo dhaweynta madaxweynaha dalkaasi Turkiga Soomaaliya iyo Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay lahaayeen saaxiibtinimo aad u weyn iyo sidoo kale xiriir wanaagsan iyadoo dawladda Turkiga ay Soomaaliya ka saacido dhinacyo muhiim ah sida caafimaadka militariga iyo sidoo kale bini'aadanimada iyadoo sidoo kale dalka Turkiga uu qayb lixaad leh ka qaatay tababarida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa markiisii ugu horeysay waxa uu Soomaaliya yimid Agasta sanadii 2011 uu madaxweyne ka ahaa dawladii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Ahmed xilligaas oo asiga Rajab ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga si kastaba ha ahaatee Rajab Tayyip Erdogan waa madaxweynaha dalka Turkiga ayaa la filayaa inuu dhawaan soo gaaro magaalada Muqdisho iyadoo la filayo inuu ugu sii gudbo halka ay dalka Itoobiya wararka warbixinada waraysiada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena